وكحمها أبو برقنا سيلكي وكوفيدو ونصرير كل سيحدو نعلى طلع عليك تو دين تاقبتو نينكا iyo naagta waxay isku guursadaan haday ka weys inay iska dalaaqdo dambi kuma lahan silkeygan ku diiday shalay ana ku ogolaada maanta ana ku diiday because uma qalantido ma qanci kartid ima qanci kartid qanaaca kuguma ihi dhinacii ma tuuri kartid marka aboo xaqa Allah nafteyda meesha u roon inaanay u raadsan way qanci weysay birq yaraad iska tahay ما هن مركو قصو نقرأ ولقي نقاشيس كداي ميت كا هدوق قول يقول حتى مليون مختار عفو وقو أي حتى هديلي ده مختار وقو أي مليون عفو هديلي ده كمان عفيناي مرة ميت كا أنا أركي عد هذيك كاغو أي سيل كيغو حنكا كتصبري لعبة بالرقم ما أنا كوغو نعي wax kasta waa isiinaysa waa kugu heesan lahaa dhaqan kasta leedahay ceejan kugu hayo waa ogeeday wax kastaan ka tanaasuli karay ay amalan ku adeegsanayay diinta qabto ninka iyo naagta waxay isku guursadaan haday ka weys inay iska dalaaqdo dambi kuma lahan hal xabo mareexaan oo miskiin ay ugu darsamay oo oday waalan dhalay waana heesana cunugay wiilkayga markaa saas intuu fiiro uu afka weyn saas u taagay oo dhaho ayaanu duunka wallahi farxad inaysan ii dhineen مليون روبل وناكت ugu quruxda badan intuu guursaday وناكت ugu yar curadiisay noqon kartaa uu ka sabri laayay labadaas shay ayuu ninkaas iiga daba socdaa ilaa cunuga uu inkira xataa uu dhaho aniga ma dhalin wiligay kuguma fadhiisan waxaan ku soo fadhiista waa jiraan laakiin adiga kuguma fadhiisan xaal ugu fadhiisaa waxaan ku fadhiistaan waaye waaba ma bahayside adi ma hayso waxa lagu kor fadhiisanaa wax taagana lagu fadhiistaa wax toosana lagu fadhiistaa maxaa lagu fadhiisanaa uu ninkaas ilaahaygi maxamed sameeyaan ku dhaartay xataa hal mar saas uma taagmay maxaa see loo fadhiisanaa wax taagana lagu fadhiistaa lagu raaxaysan karaa wax hurdaay intaas la eg hadana hurdaay see loogu fadhiisanaa ilaahay baaraw marka waxa idinka iloobaani dhaxgelinaa maanta wax kasta waa sheega marka is guursanay ninkan oon aqal galnay waa taqaanini inaag maxay isku guursadaan inay wax dhaxmaraan meeshaan adeer macaane waa in la isfiirsado meeshaan sheekadaas ma jirto ani markaa biriq baasalaha iskama dhahay ninkan waa is guursanay markay wixii dhacday wallaahi oo bilaahi oo talaa ninkaas waa siiro waana u dhashtay markaan fiiriyay waa wax uu ku dhashtay markaan fiiriyay am xanuun uma maleynaa inay tahay macnaha xagga kale laba nooc oo kala qaaday mid inuu ku dhashtay midna inuu jawiga keena ama xanuun ku dhaca ay tahay laakiin uu daawo ka heli karo wax ka heli karo waxaan dareemay ninkan nin raga inuu san ahayn waxyaabaha go'aanka aan ku gaaray because aan nin raga aan guursaday nin raga inaan guursaday arba nolol u baahanahay aniga nin hadaan fiirsanahay dameer ma iska soo xareys waxaan ku falaa nin waxaan rabo meesha hadda fadhiyo asaga fadhiyo barta hadda fadhiyo dhankan aniga fadhiyo miiskan meesha yaalo zande miiskan kugu aadiya sug miiskaas mujadin hadda haduu kugu xaroodo waa kaasa aniga uurka raale kama laakiin ilaahay isii dhiiga waa soo sociyay dhiig kugu ma dhicin xaalada dhiigu isoo socday waqtigiisa malaha iska dhimanay maalintu saas yiri laba maalin kadib iskuulka anoo jooga xanuunsada ICV ku jiro xanuunaan dareemay xanuunku waxaan dareemay inuu yahay xanuun uur oo walac ilma soo dhalay iskuulka liiga soo daayay tacbaan ayaan ahay aad ayaan u xanuunsanay waxaan dareemay xanuun aad u xanuun badan oo aad iyo aad ii dawaqiyay oo ila balabeysiyay oo aan dareemay inuu uur yahay asagine guriga markuu imaado iyo markuu shaqada ka imaado ma joogi kari asagu walacay meesha aan ka walaci lahaa ninkan asagu soo walacay asagiya uur leh ilaahay amarkiis wuxuu igu imaado magaalada iskuulan ka soo baxay wuxuu yiri kaalay maqaayadana ku geynaa maqaayad marbi uuraan qaaday marabin uurina qaado waa ooy wuu isirsiray wuxuu ugu dhahay milyoon aniga uurka ma gacantaan kugu geliyay maana ku geliyay walaal qadar ilaahay bay noqotay ilaahay baa ku siiyay daa uur qaaday waxa cuni karta kaale meeshan ka cuno isdajiyo cawdi bilayso shaydaanka iska naaro ilaahay qadartiisa aamino waxaan ku iraayo haduu kugu xaroodo waa kaasa aniga uurka raale kama laakiin ilaahay isii saastay tahay wiilkayga dunida ayaan u jecelahay wax kasta uu yahay aniga ayaa dhalay ninkan marka waa ogaado already inuu xanuunsan go'aanan ka gaaray mar hore dhowr mar aan wada fariisan in asfurno uu iga diiday wuu isirsiray ilaa aan ka dhashid isugu ugu dhaamiliyay adiga dantaada fiirsi ugu danayso أنا واقول جعلها نفط هذا يوم بهناي هذا أذيك يربن وايه دنت هذا في رسم مليون بلطل أنكو عاوي أنت كده ليست
meeshaan dadkuuma joogay weliba waxaan ku yiri dadkayga wuu joogaa ehelkayga dariskaygaan ku dhahay familkayga waa cidan dariskayga waxaan ku yiri waxaan u baahanahay malahan wiilka horan kala tagna maalmadaas uu degan yahay waa wiil i caawin kara shaqada inta ka aadi kara xataa isbitaal intuu iga wax kasta ii sameyn karo cid u baahanahay malaha adiga wuxuu igu qanciyay inaan iska joogo oo iska furin ninkaas oo dalaaqadayda ka qaadanin oo intaas asaga aan ku danaysto asaga dantayda aniga aan fiiriyo ilaahay amarkiis waxaa dhacday isbitaalkii aan galnay waa tuu ila galay waa tii walaashiis dhimatay Allah u naxariisto waa taa isbitaal ka soo baxna guriga imaanay week iyo bar ayaan joognaa laakiin ani qorshahayga mar walba uu ii degan yahay asagana kuma qiyaameyneen oo uu ogaay oo waan ku heshiinay inaan iska furi doono ee intaan ka dhalaay aan sugaay asaga iga codsada waliba codsasay kiimid ahayd inuu waalayan ii sheegan ku fiyoobeen maalin isku dhacnay operation aan ahay oo mulaan ahay weegan qalanahay week labaad baa ii socdo wali faashadii ay ugu degan one weegan qala faashadii way ugu degan tahay igama foqin waa isku dhacnay markaan isku dhacnay meeshaan hadda fadhiyo asaga fadhiyo bartaan hadda fadhiyo dhankaan aniga fadhiyo miiskan meesha yaalo zande miiskan kugu aadiya sug miiskaas miiskaas ayuu ninkaas intuu soo qabtay uu rabay inuu igu dhufto naagta wiiga qalan oo umusha operationke oo faashadeedu wali ku dhagantay oo hadii la tuuro xataa iska dhacayso oo horena ka dilaacayso hadii saan la tuuro waa dhacay operation cusub aan ahay waana dilaacaya ilaa waan qalanahay waa cusbahay miiskaan oo ii soo qaatay inuu igu dhufto ninka miiskaana la soo qaatay waa igu dhufto waa buuqna qaylad waxa ku soo baxay ilmahayga wiilkayga curadka uu joogay iyo labadeeda wiil kale waxay arkeen ninkaan oo miis la borday ninka midig ka shakeen waxaas dhawaa qari ninkaan oo miis sidee arkeen habartu wato wiilasheedu way soo ordeen 3 wiil waa kan curadkayga waa 18 jir kuwa kale way ka yirihiin laakiin niman korsan oo milyan dhasho Itoobiya lagu soo koriyo waa kan curadkaaba ugu jab yar way soo ordeen weenaxeen saana loo qabtay ilaahaygi maxamed samee miiskii asagaba waa la fadhiisiyano bartiisa lagu celi asagana waa fulay wallahi naftiisa wuu yaqaanaa laakiin doqon waa aqli celiyuusan lahayn miiskii iyo asagaba fadhiga lagu celi 3 nin oo maadamo 3 wiil oo neegare wiilsheedu waa dhisan yihiin waliba waxa la sajiimina sameeyay iyago yarse waxa dhacday ilmihii way yaabeen odagii kursiga lagu fadhiisiyay waxa la yiri us mooyadii miis u qaadanay nacalad ku dhashay was aniga marka shala maahe waxay igu noqoto daraad waa naxay waan yaabay ilmihayga qanciyay waxaan ku dhahay ninkan waa wada hadleynaa anaan dalaqadeed ka qaadanayo hooyo iska baxa hadaa wax maqashiin soo orda ani because marabo ilmihayga hortooda inaan ku hadlo ma dooneynin bas waayay dhaheen wiilkayga curadka wuu diiday inuu iga tago ilaahay iideesto wuu diiday waxaan ku qanciyay markii dambe inay baxaan xagga qolkiina gala hadii even problem aad reentiin iso laabtaan ku dhahay okay waxa dhacday ninkii waxaan ku iri dhageyso please dalaaqadeedii si iska bax aniga adiga gurigan ma wada jiifanayno adeer dalaaqadeeda siinaysaa waana bixaysaa ooyin waba waa ku tuuga ma fiyoba marka waxa idinka iloobaani dhaxgelinaa maanta wax kasta waa sheega marka isguursanay ninkan oon aqal galnay waa taqaanay naag maxay isku guursadaan inay wax dhaxmaraan meeshaan adeer macaane waa in la isfiirsado meeshaan sheekadaas ma jirto ani marka biriq baasalaha iska midhahay ninkan waa isguursanay markay wixii dhacday wallaahi oo bilaahi oo talaa ninkaas waa zero woona u dhashtay markaan fiiriyay waa wax uu ku dhashtay markaan fiiriyay am xanuun uma maleynaa inay tahay macnaha xagga kale laba nooc oo kala qaaday mid inuu ku dhashtay midna inuu jawiga keena ama xanuun ku dhaca ay tahay laakiin uu daawo ka heli karo wax ka heli karo waxaan dareemay ninkan nin raga inuu san ahayn waxyaabaha go'aanka aan ku gaaray because aan nin raga guursaday nin raga inaan guursada rabaa nolol u baahanahay aniga nin hadaan fiirsanahay dameer ma iska soo xareest waxaan ku falaa nin waxaan rabaa nolosheedana dhiso aan ku raaxeysto oo meel iliso istaagi karo oo noloshada muhiimadda noloshada waa taqaanin wax dhan oo la isku guursado oo muhiimadda nolosha waa ka saysiin qofka bini aadanka naagta ninka maxay u guursataa ninka muxuu u guursadaa wax ay u guursato waligay ma ribin wallahi inaan ka hadlo noloshayda waxa dhacday ninkan waxaan dareemay inay xaalad ku xuntahay tala fara waa ka baxday tala ma jirto xaaladdu waa adkaatay meeshii waa zero bismillah waa yaabay waxaan ku iri marka aniga qof aad u naxariis badan ah inta iga aragteen iyo in kale wallahi oo bini aadan ah waa la sheekaysto waxaan ku dhahay waxa sameynaysaa maxaa ka qaldan wiliga saama aheeday mise wax kala jiro xataa wuxuu igu dhahay milyan naagtaas waliba gabadh isaaq hadda cunug uu leekana igu yar
وكده باب وحقوق ده مليون ناكتا سحرته سحر سان إيجا دقي موي نفيو بقى قبل إساق ده وقبو وحقوق ده دعي إنه سحرته أنا مركز دتك أنت بدن آمن ميه خرافاتك وحاس وحنكو إري سحر كسوكو يوحد شيء جيسيد دختر سومليد ها الدون هور مريان شوقنا دختر آسو داو كسينا وركا وحتى وحو كسينا أدفايس وحي أتسمين لهذا وكسينا يا دختر كاغا لكلن والله او بالله او تالله adduunka ilmahayga oo jecelaha aan waaya marka xataa ku arka xaaladaas ma isdheen inaan ku bahdil ma rabin inaan ku eriyo ma rabin waxaan isdhahay milyan ninkan daawo raadi inaan daaweeyo rabin waxaan ku dhahay dhakhtarkaaga raadso la kulan u sheeg arimahaaga dhakhtarkaaga lagama xishoodo okay yu dhahay dhakhtarkii aade suu sheegay waa inuu aadin xataa waa laga yaabaa laakiin ana suu ii sheegay waaye wuxuu ugu dhahay milyan dhakhtarkii waa tagay wuxuu ugu dhahay waxaas dhima lahan fitamiinaadka kugu yar waa beentis fitamiinaad ma abuuris allana way jirtaa xaalad kalena malaha way jirtaa wax fitamiina ma jirto fitamiinka wax ma yareeyo waxna ma baabi'iyo fitamiinka tabartu inuu ka yaraataa laga yaaba bas tabar la inuu ka keeno laakiin xaalada kale fitamiin ma noqonayso shughul kuma lahan wax shughul kuma lahan wuxuu ugu dhahay marka dhakhtarku wuxuu ugu dhahay milyanay fitamiinaadkaaga kugu yar fitamiinaadkaas isticmaal فيتامينات في عن استعمال سيديس مركو أنا منين أو حار ربا أنا ألعب واحد كل كعنا ربا سيالا أنا جنين أو برقة سكين حتى سكين أنا حبه إيكرين نما كجات كعنا وحالك شيء جري إني أنا عاقه خور داديان واحد أو يسلك جاري جاب معيو سكريد معبي واجه رعون جري أنت يرست حتى ما هينكريو نين هي سكر معها سكين ما هيسكريو وان سكين ما هينكريو والله وبلا 1 minute ماهن 1 second واحد مجرت وشيء والله وبالله وطلع واحد كستون قرنا ما شيء 1 second حتى ما هيسكريو 1 second 1 minute إسكداي كقدرنا وزيرو وفريري إلهي أولادي ده مركب فريري إذن لا أنا محين هاد فريري مسكرها وفريري فريري أو هادنا سكن وحبه يسكرين إكفيشن وكريد هادتك قص مركب dhakhtarka waa u tago ugu dhacday ninka sidoo ahaan go'aan gaar waxaan isdhahay milyan ninkan iska fur because of waa dareemi kartiin naagta ninka waxa fiiri wax kasto ii sameynay lacagta soo soo qaataan uga qaaday adeega Denmark uu iga soo safrinay tareen oo la soo raacay asagoo shaqo leh wuu ii keenay gurigeyga asaan nadiifinay jikada asaa ii galay musqulaha wax kasta asaan nadiifinay maxaa iga maqnay way aan go'aan ugu gaari karaa inaan iska furo laba sii aheed on kala harin number 1 waa mentally maskixiyan number 2 gogasha nin haduu ku fiicnaan cid rabta ma jirto nin haduusan mar gogasha ku fiicnaan cid rabta ma jirto anaga ma waxa u guursan inaan daadaawano ninka naag bal soo qara hadaa u guursanaysid ninka inaad daadaawatiin Soomaaliyeed naagta rabta nin inay iska agjiiftayaa waay markaas wuxuu ugu qancinaa saan ma haajirin waa fiicnaa jiray naagta isaaqda wallahi hadda ka hor waa suuxiyay saa u xeenaa suuxiyay way suuxday أصلا دكتور وع أمبلاس أنا جوا في ناجري أيضا السحرتي ناقتي إساقة السحرتي قناعه يقدر كم قناعة أنا هدي السحر حتى أنا السحر سيال أنا هدي حتى أسحرية أصدقني أسحر أنا السحر كاس كفرو أنا جا نرجع ربع رجع نرجع ربع أنا جا مجورسن لنا ده أنا جا أباهنا هنن أو فريرة أما نبرق هو أو إسكت عادنا دقيقة سكين أنا وحبيني هداربو أنا جا محلي هذا نلعب بجوجلها نلعب بجوجلها ونولان لها مركز وقبل أسوق جفاء وحوله قبلها كلو عنجري لكن أيضا وحدو يجري ويجعشها ويسحرتي أيضا إتاكتي ونها قبلس هذا واحد قد بجري ما مدى سحوله هاي ويسحرتي because of واناك إيجوين واناك سانة ويجعشها هاي أنا واقير هاي هبلو كما يريد والله ما يخمر أكو قرحي وناك سبحان هاي هذا كيرتنا وحبنا كما يريد اسكت لبدينا باسكت آتينا كله إلها نيقداريه نين أو برق يا ربو يا هي سنة أنا مركو جوان كيجي وحق هذا نكاس أون ربي أنا أقول تجون إسكاجا فرو أنا وحبد دباتو جيسن مسكحديس حتى أنا كل لين إن الدلاقة دي كقاطو إلا نين إيمان نقون كريه وحاسة مليون دلاقة هذا كقاضو وكقاطي أذن كمرك عدين محن يقول في إنه نكاس برقية maalinta uu gogosheeda ka hadlay uu booteeyay uu yirsaan baan yeeli jirayo way ku fariisan jirto ninka ku kor fadhiisan jirtay maxaa lagu kor fadhiisanaa oo hay ninkaas waxa lagu kor fadhiisanaa wax taagana lagu fadhiistaa wax toosana lagu fadhiistaa maxaa lagu fadhiisanaa uu ninkaas ilaahaygi maxamed sameeyaan ku dhaartay xataa hal mar saas uma taagmay maxaa see loo fadhiisanaa wax taagana lagu fariistaa lagu raaxaysan karaa wax hurdaay intaas la eg hadana hurdaay see loogu fadhiisanaa ilaahay baarawa
سيل ما كده هيجب because أصدق بوحشون واي والله إن أنا كده marka wuxuu yiri markuu nim u ka sheekana waxa weeye ninka aad ku fadhiisan jirtay weligay kuguma fadhiisan waxaan ku soo fadhiista waa jiraan laakiin adiga kuguma fadhiisan xaal ugu fadhiisaa waxaan ku fadhiistaan waaye waaba ma bahayside adi ma hayso hada xataa kugu fadhiisana ma bahayside xaal ku fadhiisana sota dhakhtar tag ku dhah dhakhtar tag walaalo macaano nag fadhiisiska daaye sikinaad hay weysay inaad xaaladaada adkay sikin bis inaad normal noqotid eed hay weysay sila isku dabar xataa midqaa adduunka dhaqaatiira jiro farmashiyaal jiro oo loo sheegto wax kasto adduunkan waa la hormaray qaab wax loo raadsada xataa midqaan waa ku dhaxta jaanis ku si dhakhtar taga ku dhaa waa aadi wees waxa artamiya marka sidaad inaa kugu heesto ana cunuga dhalamaata akorsanaay sarirta ma dhinac iga jiifanay wallahi oo billaah tala marka adinka maxaa cadeen igu filan Soomaaliye maxaa cadeen igu filan maalintuu ka hadlay uu aniga yiri saasa u wasay naagta hebelo waay ninki saas kaaga siinay baan ahay badaq 3 bilood baan la noolaa xaraan kadib baan meersaday badaq markuu dhahay hal eri markuu yiri waa ugu fadhiistaan waxaan ku yiri maxaan ku fadhiisanaa biriq baasaaba heeda maxaa haysay ilaa wadaan been ka sheegayna adduunka intaan jecelahay aan waaya maxaa haysan ku dhaan ku fadhiisanaa waxaan ku fadhiistamada hays inta uu ka dhimanayo ninkaas uu maanta iga harinayaa waa laba shay mid eragaas ayuu ka dhimanayaa wuxuu isiri wuxuu ku gala magaalka inaad biriq tahay waa lagu ogaaday midna waxa weeyaan مليون روبلا وناكت ugu quruxda badan intuu guursaday waa naagta ugu yar curadiisay noqon kartaa waa naag faamosa waa naag Soomaali oo dhan jeceshahay waa naag cod kara waa naag aqli badan waa naag gubeed waa naag ixtiraam badan waa naag dagaal badan oo wax disho oo wax noolayso uu ka sabri laayahay labadaas shay ayuu ninkaas iiga daba socdaa ilaa cunuga uu inkira xataa uu dhaho aniga ma dhalin DNA social media laga ma qaado Sweden u soo dirsa DNA warqad biibas ay soo dhacdo ee ilayhin milyuunay DNA cunuga noo keen waqti hebel ninka DNA oo soo dirsa diyaar ma u tahay in lagaaga qaado ma hubtaa inaad dhashay warqad liidaha hay soo dhacdo diyaar waa laga qaadaa tan kale aniga muhiim iimaan anoo og cunugayga ina adiga dhashay biriqaas ku dhashay biyaa sir xarooda ku dhashay anoo og hadane muhiimaba ii tihidba ina adiga cunugayga aabuu noqotid muhiimaba ii tihidba because of aabanimadaadu waxay urtay ay baqday ay hoogtay maalinta dalaaqadeeda marka ka qaata inta baxdo social media tagtay aniga cunuga hooyadiis ka soo caysay maalintaas ayay dhimatay aabanimada aad la ooyeyso maalintaas hadaadan sameeyleen saas oo sidaan u kala tagnay inta gurigaaga tagto shukaansi iska galeedo naagtaarta guursan leedo iska qaraxaysan leedo edib iska yeelan leedo aaba waa ahaan leed laakiin ani maxay kala maqan tahay aabanimadaada bal waxay ii soo kordhinaysaa hadda ii sheekar Soomaaliya ninkaas aniga cunuga ma dhalin yaraankayga waa hebelo waa ka dartay u blogays okay markaan ku raacna taada aabanimadaada maxay la maqan tahay yey wax kala maqan tahay DNA adduunkan shaqay soo dirso gaalada u soo dirso waa laga qaada lacagtan aad bixinaysa markuu qofku yiraahdo waxaas aniga ma sameeynin DNA ga lacagta iska diyaarinaysa dawladda way ka qaaday lacagtan aday ka qaaday haddii cunugaas aalahaatid ganaaxa ku sii koray waliba dawladdu ku sii ganaaxay lacag badan oo magdhow laga qaada abuse-ka aniga iyo abuse ay caysaan maxkamad kugu kori kara lagaagana mahara social media ma ahan meel DNA lagu qaado meel waxa waay habraha inta sharafta daran inta loo koro lagu jaqjaqeeyo qabiilada Soomaaliya lagu caacayo naagaha isku burbursadaan oo noocaas cunugaane shalay adiga isbitaalka la taagnay adaa cambay babaayil kor taagnay adaa anoo cidaada caynay cad iyo madow igu siinay adaa walaasha cunugaas dartiis u balogay gabadha boqorada kula dhalatay ee degan Denmark ee wadanku ku keentay waxba iga ma haleen ani gabadhaas adaa cunuga dartiis u balogay adaa dadka hadda wada sidhan dartiis u caynay adaa cunugayga ku jiray adaa cunugayga kala dartiis kula dagaalay adaa meel walba ordaayay adaa dhaqdhaq lahay anoon abaal kaaga heer waliba anoo rabin inaad noqoto xataa adaa dhaqdhaq lahay aniga maantay aabanimadaada waxay igala maqan tahay malaha kuleel iyo qabowna iguma hayso dal hormarayaan joogaa cunugaygana dawlad ayuu hoos joogaa xuquuq ayuuna leeyahay wixii adiga lagu leeyahayna dawladda ka qaaday waliba sandulo tuugma la'aan
ayay kaaga qaadaysaa wax isxaanay aysan jirin ayadoon abaal lagaaga haynin oodan ajir ka helaynin ayay lacagtiisa soo dhacaysaa 4 bil ay ii soo dhacdo under hole Vira Monad oo jira cunugeyga Vira Monad ko ii soo dhacday way aa u saxiixday dawladda miska ka siinay lacag haddaa dhihi laheeda ma dhalin dawladda warqada igu soo ceshan laheeda waxay dhihi lahayd milyuun ninkaas ma dhalin uu dhahay lacagteena meel aan u raadsanaa aan rabnaa hadhowti DNA aan ka qaadayna saa u ogaan inuu dhalay haddaan aniga dhihi lahaa dawladda nin iga dhalay ma aqaani niman badanaa la tunta haddaan dhihi lahay wax badanaana dhex maray nin iga dhalna ma aqaani dawladda intee qofay ku leedahay waa ku weydiinay meeqa qofaa contact kula dhex maray intaa haddaad xasuusid waxaa leedahay intaasoo qof ma taqaanaa haddaad taqaanid waa aqaanaa haddaadan aqoonin ma aqaani haddaad taqaanid inta qof ee aad la samayso contactiga dawladda DNA u balansanaysaa waa la kala saara adduunkan kala baxaa jiro cid ku xadgudbi karta ma jirto inta qof ee markaas adigu aad sheegto tira hebel aan contacti la sameeyay noocaasi xilligaas hadaa dhahdid DNA saddexda loo diraa lacagta DNA gaas xataa dawladda bixinaysa markaas cid laga rabo ma lahan dadka adiga aad uga marka aniga ka shakiyo cunugeyga waxa iga dhalay lacagta lagama rabo dadka uga shakiyay because aniga ayaan dadka kala garanaynin laakiin marka aan garanayo qofka ka dhalay cunugaaga oo aad leedahay hebel ayaan la jiifta ama hebel ayaan la saaxda ama hebel asaas aad leedahay ama nin noocaas aad leedahay adeer macaan dawladda waa ku weydiinay waa ku balansanay waxay ku leedahay adeer saas ma jirtaa wadankaasaan ka soconnaa cunugaas baa soo biiray maxaad ka leedahay cunugaas maadigaa dhalay haa haddaad tiraahid jag unterholka way saxiixaysaa dawladda adayna kaa qaadanaysaa may haddaad tiraahid warqada igu soo noqonaysa waxaa lagu leeyahay milyuun miya ahaa ina adeeray dawladdu waxay leedahay ninkii baan la contact garaynay wuxuuna dhahay cunugii ma dhalin DNA diyaar u soo noqo waqti hebel cunuga noo keen DNA ka qaadanayna adaa lagu ballamina aniga xataa DNA liigama qaaday adaa lagu ballamina DNA laga qaadana anaa lii ballamina cunugayga DNA laga qaada that's it cunuga haddaa lahaatid lacagtana oo dhiiggan adaa bixinayo waa qaali ganaaxna wuu kugu dhacaa cayda ay cayso waa laga jaraa wax kasta oo xumaan ayaad maraysaa habar aniga madaxa aan ka abiyso marka inta u tagtid cunuga ma dhalin qaraara ka keenay shala adaa dhaysa waa dhala social media marka iga caysay oo tiri 3 bila xaraan ku jooga adiga haddana soo hadlo tiri beentay aheeday qaraara iga keena ani kaama keenin ani qaraarkaas halkaas ani kaama keenin marka inaa waalan tahay Soomaali waxa cadeen ugu filan number 1 inaad ceebahayna banaanka geysay oo igu qasabtay inaad wax matara tahay inaan dadku u sheego tan kale marka ila joogto commentiyaasha dadku waxay soo qori jireen dad reer Denmark u badan I don't know waxay ogyihiin alla qaniiski Denmark joogay alla qaniiski Denmark joogay muqtaar qaniis wadnaha igu ijray wallahi marka wax og tahay oo haddana wixii wax u eg lagu dhaw qasama bila waa naxa wadnaha igu ijray saxaad jiray a'uudu billaah ninku maqniisa waayahay wax yiriska xool leeyahay way u kacsaneenin dadkan waxay u soo qorooyaan way dadkan aysan u dhahayaan maxaa qaldan shaki ay gali jiray nacalaan igu dhashay comment ku dhiglayaalo maxaa shaki soo galiseen xataa waxa isli jiray ninkan ma waxba lagu ogyahay ninkan ma la soo goostaa ma reer Denmark yaqaano ninkan maxaa ka qaldan futada farnaaga Ingiriis xataa aad kordhays futa far la gilna qaniis la waay maantana adiga taagan cunug ma dhalin ina dhashay ina dhalin cid ee qiimo ugu fadhis ma leh aniga tan kale aniga waxa ah baan ahay qudba sir hadaan ku guursalahayna maanta waan qoomameylahay laakiin waxaan u qoomameyneenin oo qalanjadaas qoor dheerta u ahay oo kuugu soo hurday ayaa waxay taanaag isubtaan ahay oo gadacad u jiifto oo libaax amal barqaysanaysan ahay meel loo ogyahay lagu kaameri tolkayga igu kaameri ayadoo lagu yasaay lagu diidaya aniga ku ogolaaday meel loo ogyahay maanta qudbisraad igu aroosi lahayd shalay lahay oo ku jur lahay barooran lahay Soomaaliya tolkayga laakiin maalinta imeersanaysay dadkayga igu kaameri ina ay qabteen social media laga ogyahay anaa ku geeyay dadkana daawanaya marqaati ka inaad iga daba sii jirta cambaha iyo babayga anoo cidaada caynaa oo adiga cayn jirtay weel dhac markaa guraysa ani kaama keenin ani dartay caynaysa biriqnimada haday ku gubtay Soomaali u caday inaadan biriq ahayn adduun hormaraa la joogay adoo live ku jiro bal isqaabo hadda way soo gal adoo live ku jiro waxa tira waa kaasa biriq ma ahay ifiiriya dheh ilaa dadaarta ina qancisidi
dadaa u nooshahay inaa qancisidey waxaa ku tiraahdaa naagta waa inabtay beenteed waaye biriq ma ihi haa walaahina gus fiicanaan leehay waa waray waa kacsanahay idaya dheh ama naagaha soo furtay intaa lacag siisid kaalay ii hadla dheh kaalay waxaa tiraaheen ninkaan si fiicanoo noo kala kici jiro been waaye waxaaseeti dheh Soomaali daarti inaa qancisid intaasaa ku qanci kartaa tan kalmidaan kuu sheegaa Soomaali inaa u noolaatid maaha Soomaali waa dad xun Soomaali dad fiican wuu ku yar yahay Soomaali inaa u noolaatid bini aadan ama aad qancisid waa ku qaldantaa waa ku ceebowda maxaa faa'iiday biriq iska tir ana biriq kuma dhihi lahayn waagaas ceebtaada waa ku qarsoonaa lahayd naagta aroosta ula tigleed biriqnimadaada adaa gogosheedii ka hadlay adaa sariirteedii ka hadlay adaa been iga sheego tir milyuun waa i wastay ana maa ku wasay kuma wasin waaba ku wasi lahaa laakiin nin la wasa ma ahayn nin la waso oo wax lama ahayn markaasaa tiri way wasta naagto haa ninkay ku fadhiisan jirtay baan ahayo ninkay hebelo baan ahay no waa inabaysay kuguma wasin kuguma fariisan nin lagu fadhiistay nin la wasta midna ma ahayn niman hore soo wasa way jiraan nimankayga hore waa wasay laakiin adiga xankaa wasaa dhakhtaraan ku dire waa rabinaan ku wasa laakiin waxaan wasaa waayay adillo waa hebelo haa inuu ma dhalin hebelo shalana adaa ii diiday cadaabta xataa hadduu ilaa igu tala gala xataa adaa tiri marqaati baan ka ahayo ceeb male malyuuno mukhtaar baa cadeeyo caynkeedoo kale la cadaabi maaye Soomaali uma baahna marqaati inaa waalantaa waa lagu jeedaa weliba quruxda malyuun baa ku sii waashay qadarta ilaahayna ma garanaysid xataa isma dhehaysid gabadhan carafaa ilaahay kuugu daray kuumay qalmin waa naagta noocaas saas u quruxda badan leh laakiin maanta cadkaanaad ku laheeday taankisto allah alxamdulillah shukri ilaahay oo adaa da igu daray calafkeeda hadduu dhamaaday idiidane waa gabar walaashay cunugeyga hooyadiisii ha noolaato waa lagaa waay ha faraxda waa lagaa waay waa ka samri laada siilkeyga xunkaa ka sabri laada biriqnimadaana kugu nacay wax kasta waa isiinaysa waa kugu heesan lahaa dhaqan kastoo leedahane ceejaan kugu haaya waa ogeeday wax kastaan kaa tanaasuli karay ay camalan ku adeegsanayay lacagtaadu si kasta u isticmaalayay jikada ii galaysay dharka ii dhiqaysay wax kasta ii sameeynaysa waay aniga aan go'aan ugu gaarin iska kaafur waa labo number 1 gogosha waa muhiim qof kasteena muhiim u tahay been ma la isku sheega malyuuna ina qarsaad no adeer xaq lagama xishoodo diinta qabto ninka iyo naagta waxay isku guursadaan haday ka weyso inay iska dalaaqdo dambi kuma lahan naagta ninka wixii laga rabay ee waajibka ahay maahan adeer lacag maahan jiko kalo la galo maahan gur lahu farayo maahan nacamlees la nacamleeyo maahan sidii cunugar inaa marka loo qaato waajib diiniyaha jiro oo ninka iyo naagta ka dhaxeeyo hadduu ninka gudan waayane automatic dalaaqadeeda loo siinaa adeer macaane tuugmana aysan ahayn way qanci weysay biriq yaraad iska tahay xataa waa xanuunsantaa dhakhtartagaan ku iri waa diiday ma u dhalataan ku iri may naag baa isxirtaa tiri adeer macaane nolol ma hayside qof daruufaysan oo lacagta kugu qaato oon milyuun camal aan dheeray karin haddaa haysataaye ku baashaal biriqaagana kugu rabto because lacagtaas bisay rabtaa ayada aniga laakiin lacag balaas aan rabay lacag balaas jukays seelaan lacag kaligeed xaan ku falaa aan lacag kaligeed xaan ku falaa intee geena no naag walba waxay u joogtaa adeer macaane ninka wuxuu nin u yahay inuu naagtiisa qanciyo naagtana waxay u guursataa nin qanci karo awlaad hadii ilaahay ka siiya deertana ay u dhalayso hadii kalena intay dhaxda taagto futada u taagto marna ay raaxaysanayso labisanayso marna ay baashaalayso runta ma isku sheegaysaa Soomaaliya masabeen yeetaa naagta nin gogosha ku xun la joogayso hadaa taa nin aniga i qanci karo wax yar xataa waa ku qiimeelahay maalinta ay guursatay ilaa hadda waa ogad adiga la ijeclaa ii waalanay adiga la idheeyso waa ku jecelahay milyuun ima jeclid aan waliba ku cadeynaa ku dhahay kuma jeclid qulubtayda qunful baa laga saaray ku dhahay adeer hadaa ay qanci laheeday waa ku jeclaan lahaa at least waa soo jiidan laheed hadduu ninka gogosha ku fiican yahay dhaqamada xunxun oo iska bedelo it's okay nolosha way sii soconaysaa laakiin nin isku darsaday gogosha soo ku xun oo biriqa oo baasile la orday lacag la ordays lacag bisad la ordays aan lacag xafala lacag haysta Yurub jooga aniga Yurub waa joogaan waa shaqeysana lacag waa haysta nin aan u baahnaa ila noolaado oo baahna oo marka dareenkayga joogana iga tumo marka kaleetana aan iskala qoqoslo uma baahna lacag nacalatulla caleeg aamus waa laga waaye edib in lagu yeelo waay waxa taa Soomaali loo yeelay cadeen balkeen
waxaa cadeen keentaa inaadan biriq ahayn oodan faryinay lahayn doqon aan caqli lahayn oo uga dhunto bulshada tahay doqon aan ceebtiisa astrukrinaad aniga ma ceebay ii noqonay naagaad ciddeeda ka doonatood shalay u naageynayso Soomaalida kuga arkays ma dhalin cunuga ma dhalin markaa tira see ceeb igu noqonaa dadku wayba kuu jeedaani shalay ku arkayn maantiisa kuu jeedaan waxa sameynaysa inaa waalantaas dadku waa kuu jeedaan inaa shalay i qabtood ila nooladood i haysatood habeen 7 saac tariin ii soo raacisana afkaaga ka marqaati furto waxa leedahay anoo shaqo ka soo baxay inta soo shaqeeyaan tariin inta soo raacan cuntada u soo qaadaan jikada u galaba way iga keensatay shalay waxaan ka keensatay diin iyo raad aa leedahana ma lahan qaniis xun baa tahay oo ilaahay ka baqaynin adeer macaan ilaahay haduu ku gartay inaad daciif noqoto oo xaaladda kugu xumaatane ma ahayn ina aniga ii jaafaysatid waxa soo dhan waxa u sameeysan uun yaa biriqnimada lagu cadeynay maxaa faa'iiday aniga hadda waa kaas waa dulmis naag kasta oo aniga isdagaashanahay aad rabtiin inaad ii dulmisid oo ii tabaracdo adoo nin dhan oo gurigay ku soo noolaayo ilaahay wax iigu ka diray waa soo booda hadana qaraarkii ka bato waxa diri cunugaas ma dhalno cunug 14 sano igu yar aniga maxay iga bedelay inaan dhasho Soomaaliya u jeedo inaan dhasho dawladda u jeedo inaan meher xad ku guursan waa loo jeedaa oo meel official igu meheriyay maxaa iga bedeshay aniga oo maanta dhaawacood ii geysan kartaa maxay taa aniga habar aniga aan soo bahdilo in adeertay iyo mid gaalgalaa aniga sheeganayso inaad meel inta u korto cunuga ma dhalin dhahdid intaas ma aniga rabtaa inaad igu bahdishood milyoonaad ku bahdisho ugu guulista isleedahay no kalsooniyaan qabaa naag isubtaan ahay oo meesha lagu mehriyo oo xilliga lagu mehriyo ma garatay cid aan qancinayo Soomaaliyeena ma jirto because uma nooli aniga bini aadan uma nooli aniga waxaan ahay naag iskeed u nool iyo awlaadeeda cid bini aadan oo aan qancinayo dadka qaar xira milyoonay saasuu dhahay DNA inta soo qaad warqada dadka u keen no cid aniga warqad aan u keenay ma jirto cid aan qancinayna ma jirto bini aadan aan intaan u soo fadhiista leeyahay ninki waa kaasa DNA-ga wuu dhal xataa ma jirto aniga waa is ogahay waa is hubaa naag la guursadaan ahay naag sanad qabayaan ahay naag meel degneedaan ahay naag ilaa ay ka dhashay la daba socdo isbitaal la galo warqad gurigiisa loogu dirayaan ahay isbitaalka ugu jiro xataa lacagta gurigiisa ugu dhacday adreeskiisa loo diray oon ku qoray meesha ayay ahayd cid marka aniga milyoon aan qancinayo ma jirto wiilkayga biriq ahaatid ama hadii kale ina adiga dhashay aniga hubo DNA dalan jooga dawlad leh lacagta laga soo jaro laga ma jar leheen inta dawladdu ku noqotid oo wacdid waxa tiraahdaa aniga lacagta laga ma jari karo DNA u baahana shalada noo ogolaata lagu leeyahay DNA ga laakiin waa lagu ogolaana jaaniska kaliya ahaysatid waa ina DNA dalbata hadda lacagtiisana aad diyaar iskala noqotid tan kale mid kale aan sheega Soomaaliyeed ninkan hadda cunuga ma dhalna la yaabaysiin ninkan gabadhiisa oo curad ku xigeenku soo inkiray gabadha xamar joogto oo bii dahab la moodo oo lama malay ma ogidin adinka waxa waa sheega waxaan qarnaa ma jirto gabar bii dahab in laga abuuro u malaysid oo inuu dhalay xataa ay iska muuqato oo qurux badan oo maanta 20 dhowr jira ayuu ninkan inkiray oo reebtigeed soo korsadeen oo mar dhow calaaqaadka wuu yaqaana inuu naagta markuu soo raba ka waayo ama ay ku xugo macnaha isfahm waan inuu ilmaha inkiro waa hawshiisa waa shaqadiisa ilaahay oo awlaadeeda aan waaya gabadhiisa bii dahab la moodaa asaga dhalay ana xataa dareemi karo inuu gabadhaas dhalay markaasuu soo inkiray markaasay ku qaangaartay kuma cusba marka ninkan inuu naagta uu ka karti badan ama ka awood badan ama fahmi weyso inuu dhaho cunugaas ma dhalin uguma horeey cunugayga cunugu dhaha ma dhalin cunugayga uguma horeeyo gabadhiisa dhan ayuu inkiro 20 dhowr jir oo ku soo kortay ayadoo la caynayo kana barono kan waa ku cadayseeno wixii dhan waa arkayseeno waa u jeedeen daraado waa dhanoo dhahay waa u jeedeen gabadhaasaytu say tahay ay u soo rafaadiyay bahdile u dhibaateeyay saqiirad asaga uu dhalay ayuu ayay ahayd wax dambi ma gelin waa sida saqiirkayga xarash uu hooyadad u haayay iyo ku xumeen ayuu u sameeyay ninkan waa nin mentaliya oo waalan Soomaaliyeed waa nin caadaystaba ilmihiisa naagta da isdagaal inuu ilmihiisa ka jaro saqiirada uu dhalay uu ka jara ilaa ninku waa khaniis gus male intaas ku dhagan waxa waa asagana isdifaacida ku jirto وانا جريه ومسكحين وجريه حتى نينك markuu eber yahay qaniisi waxa ma tarayahay حتى niman aqli badan oo waxa jira dadka inaysan fahmin iska ilaaliyo noloshooda si caadi ku nool ninka gabadhaas ani hadda gabadha sawirkeeda ma rabin aan soo dhigo laakiin hadaa aragtiin waa qaracmaysiin gabadha say u qurux badan tahay
والله او بالله انت اللي اكتهي لباتني دور جير واي اسو انكره uguma horeeyo مليون uguma horeysa marka waa dhaqankiisa tan kale waa nimanka meesha joogan ku jin waa ogeedana markuu la joogo ay amal ana qof fiican ahay oo gabdhihi uu soo furay caydeeda ka dhageysanayno asaga af ku dhufan jiray wallahi maalin anagoo wada joogno cidriska inta wiil oo faarax la dhahay gabar siciid la dhahay gabar kale iyo anagoo wada joogno guri ayuu gabadha isaaqda hoo qabo oo warkeedii meesha keenay maxkamadu lahaa marka cunuga laga saxiixanay markaas oo kaaga darane wixii markii laga sheekay waxyaabaha aan la daawanaa jiro oo naagti baa saasi ugu sameeyso ha maxaa dhacay dadkii oo meesha buux way jeceshahay naagta ana inta isku xishooday oo nafteeda u yaxyaxay oo ceeboobay oo ceebeystay aan waxa iri see ku ogaatay gabadh inay ku jeceshahay adaa u dhuqdhuqeynayso gabadh kale xaayna ku dhaa waa idab daranta see ku aflagaadaysa cunuga hooyadiis way jecesha jinni ma ku sheegan ku dhaa inay ku jeceshahay jinni ma ku sheegan ku dhaa inay ku jeceshahay gabadhaas isaaqda wallahi meeqa aan asig difaacay ayada iimoogo ما فهمت سامركا نكان وشقديس إنه public حتى أو كم جيسي ونك أنت مال دكانة تجمعلنت عن فري أو يجي تجي إما أو واتساب كو يجي صوا عجالو يقبل ورقة ما هاي أو دكانة وحوك دحلة قبل السلامانك لبسنا قبل أو إثيوبيا والله ولا جاي كم كرمر أيدا يجي كرمر جرت وإلهي أمرك سوالا يجي كرمر أو كفانا بنكان وحاس أوجاد إني قبل ناس حتى ككرمرين إيدا يوصل جرتو دكان وكدحلة بقلق في جوكتو وحوكله قبل ناس إيدا يوصل جرتو ويجي كرمر جرت أنا جياب تلفكان كجرا إما أوجو وبعاديسه ولا يوصل جرو تاجه سقاشن marka waxa ogaada gabadhaas xataa inuu beenka sheegay markuu aniga dhaha milyuuna ay wastay oo igu kor marto waa naagta saas igu sameysay markuu dhaa ogaada gabadha Saleebaan inuu beenka sheegay oo aysan wiligeed wasin ilaa wax la wasaba meesha ma yaalay xey wasay kor mare soo marka adeer gabadhaadi bureeqada aheeday waxaan ku iri xuural caynta aheeday abyan mukhtaar ayaad inkirtay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo gooyay aad silcisay oo inkirtay naakasta ninkan hadana fiir shan naag oo mishan da maxaa keeni karo shan gabdhood oo mishan da ay kuwa kale iska daa shan gabdhood oo mishan da maxaa keeni karo asleediin naagtan waa guursanay ninkan birqina way arkay waa kasi orday waa run yaa rabanan birq la noolaana markay guursatay ku qaldanto uura isaga xaraanay ninkan wax matara waa naagtan waa iska sii burhe shan cunug oo shan hooya waa keyga ku shanay wax kasta oo waajib kugu ahna dawlad baa ka qaadayso silkeygan ku diiday shala ana ku ogolaada maanta ana ku diiday because uma qalantido ma qanci kartid qanaaca kugu ma ihi dhinacii ma tuuri kartid marka aboo xaqa u laha nafteyda meesha u roon in aan u raadsado kollay naagta hadda guursatay waxaad ula tagtidna waan arki doonaa iyo meeshaad ku dambeynaysiin waa sugi doonaa ilaa social media toosa u soo gashay waxa tahay adiga ay isku cadeeyay milyuun uga ma adkaanaysid inaad tiray cunuga ma dhalin uga ma adkaanaysid lacagta cunuga laga ma jar laheena daadan dhalin aniga nimana ay soo furay Soomaaliya ma aragteen anoo nin fur ka hadlay anoo noloshiisa ka sheekeynaa mi aragteen anoo wax ka sheegay xumaan mi aragteen ima arkina adeer macaane niman nool oo naag qanci kara ay soo furay hore door mar xataa niigu sarbeebay wax hada wax fahmaysiin Soomaaliya asoo ila joogo aan wallahi billahi ninka sarbeeb ku bahdili jiray aan dhigi jiray naag ninka sharaf badan soo fura ama ka fiican lama guursado meeqa maraan idha naag ninka fiican ama ka gobsan ama ka raganimo badan soo fura lama guursado naagta la guursanayo waa inaad naagta marka guursanayso waxa fiican naagna soo dhibay naag nolosha soo weysay naag aan raaxo soo arag naag la soo kibrin naag waxaan ku yiri sariirta lagu soo kala kicin naag rafaadsan markii la guursado ayaad ka guuleysan kartaa laakiin naag ninka raganimo badan ka la dheereysan sariirta wax ku qanci karo gacanta u furan tahay dhan kastaba kaaga shan soo furay hayma kartid that's why anigu heeweys adeer marka wixii aan qarinay inaad cunugtaada hore inkirtay oo la aamusnaa adaa keenay in la sheego inaad birriq tahay inaan cadeeyna adaa keenay inaan sheego aniga wax yar oo intaas la eg hada umaleys inay ii geysatay ima geysan am still milyuun I have a power still I have a power weli power aan leeyahay dhalmadaadana waxay ii sheegaysa male wax ay igala maqan tahana male maanta day wax igala maqnaa laheeday wax dhibaato igu ahaan lahayd laakiin maxaa igala maqan tahay ya wax ay igala maqan tahay mala dawladdaas aniga warqada ii soo dirsan laheeday jug
lacagteeda maxaa laygugu bilaabo lagaaga soo jara 4 bilood lacagteeda laysi Vera Monatar oo adiga lagaa soo jara adaa lagugu kaydinayo xayga qusayani adeer wiilkayga raahibne hatta waa dhalayay waa dhala taaganta xaa u tari laheeday hooyadiis baa caysay maalinta hooyadiis caysay ayay wax kasta ka xirmeen maalintaas oo adduun oo dhan kugu qarribmay maalinta cunugaas yar saqiirka hooyadiisa aad caysay ayaa adduunka oo dhan kugu qarribmay xataa hadaadan hadda dhihi lahayn ma dhalin mar walbo agteena waxba kamaadan ahayn mar walbo agteena waxba kamaadan ahayn Soomaali maamulaysa la joog oo without DNA oo ma dhal inta la dhaliska yeelay meeshaan Yurub la dhahaa adeer macaane lacagaha laga jara adeer ya lacagaha laga jara adeer so waxba ha isdaalinin naagtan quruxda badanna way ku dhaaftay shalayaad sixiro eedood nasiib badneeday sixirkaagad ku heshay maantane tolkeedii ka quraan saartay oo waa ku eriday oo waa ku nacda biriqdaada iyo beesadaada mid kalena dadaan u sheega dadkiina abgaalka ay naagaan xun eeyaha oo ilma adeerada oo qaarna ay yihiin dadkayga codkayga hore ninkayga guskiisa fooqa nimanka abgaalan leh waxba ha wareejinina igama guuleysanaysiin aniga naag walba waajiba saaran ninkaaga ku qabo waa maradaada inaad difaacato naagta kartida leh xaqay u leedahay ninkayga iyo cunugayga iyo naftayda iyo hooyaday aabahay inaan difaacdo xaqa u leh qabiilaan difaacnaa oon shuqul aan ku lahayn anaga soo marka ninkayga shalay maadaama aad ku dhagteen aniga dartay ugu dhakanadeen ayaan niidhaha ninkayga igaga fuqa xaq ayaan u leeyahay gobonimaana ku gaaray iyo karti iyo laandeernimo run ayayna aheedoo niman ilma adeeradaya ayaa igu dhaganay ninkaygana ku dhaganay oo dhahaaya ka fuqa seedigin run ayay aheed wax beena ma jirin ilmahaygana ilma sharaf leh oo abgaal cismaana oo laandeera oo wicis lacada oo cid ceyrta bixisa ayaan heystaa hal xabo mareexaan oo maskiina igu darsamay oo oday waalan dhalay waana heysana cunugayga xoo halay cunugayga saqiirka xoo samee maskiinka markuu ii qoslaan ba iloobaaba wax kasta oo igu dhacayo xumaan wiilkayga markaa saas intuu fiiri uu afka weyn saas u taagay uu dhaho ayaanu adduunka wallaahi farxad inaysan ii dhinayn markaasaan cuntada afka ugu gurtaa markaasaan u qoslahaa niyadana ka hadlaan korna ka hadlaan ku dhaho hooyo aniga kuu joogo hooyo aniga ayaa ku korinayo hooyo aniga ayaa hooyada ah hooyo aniga ayaa wax walba kuu sameynayo hooyo ayaan ku dhahaa waa raxmadaydi cunugayga waa naxariistaydi cunugayga waa quruxdaydi cunugayga cid aan uga baahanahayna ma jirto oday xun oo biriqnimo shalay igaga dhalayne maanta hadduu acleeyo uma tago wuxuu igala maqan yahay askari because gabadhiisa quruxda badneeda ee 20 dhowr jirka wuu soo inkiray cunugayga kama sharaf badno abiyan qurux kama sharaf badno abiyan aad soo inkirtay oo kii dhagoolka haybaa dayacday oo tii kaleeto oo Denmark joogtaa dayacdo hal cunugood maanta haysato kugu qorma jira hal cunugood mas'uuliyadiis fiiri waday waaxiya waalan laba Soomaaliya jiraan 3 cunug oo Yurub joogto hal cunug uu mas'uuliyada lahaay ma lahan maxaa sababa Soomaaliya naagtan isaaqda hadda cunug uu ku faanay mas'uuliyada lama hayo gabadhaas kale Denmark joogtana mas'uuliyada lama hayo gurigayga soo jooga laga saxiixday gabadh isaaqda waxay ka saxiixatay gurigayga asagoo jooga mas'uuliyada maxkamad lama ay maraayeen oo dheelmanay gabadha kale Denmarkna sidoo kale aaba fiican hadaa hal cunug oo kamid ah mas'uuliyada la islad wiilkayga yar ee aniga Rajaba aabiis mas'uuliyado ilaahaya wuu ilayha mas'uuliyad because of biri hadaan dhinto cunugayga aabiis inuu qaataan rabaa haday wax igaaraan aabiis inuu qaataan rabaa laakiin adiga daqan ayaa tahay aabaha dunida ugu dulisan ayaa dadhay umana qalantid inaad wax dhasho gablan ayaad u qalantay iyo guri madow gablan iyo guri madow ayaad u qalantay balaaya kugu dhacday iyo masiibo rabaaniya hooyada ayaa ku habaarto ma duceysnid 23 sanaad Yurub joogtaa hooyada hal mar aadan u noqonin inkaar baa ku haysato waa lagu farday xanuunad ku dhalatana waa kugu jira maskiixiyana waad u jirantahay aniga cunugayga cid oo u baahan yahay malahan aniga inta nool hadaan dhintane dawladda Isfaariya qaadanayso wiilkayga curadka haduu waa u saxiix haduu xanaanaysan karo waa okay waa u sheega hadaan dhinto dawlad buu leeyahay cunugayga cadaankaas oo kamid noqonaya walaalihiisna koray ka warqabayaan way soo booqanayaan hadaan noolahana aniga ayaa nool shalay waxaan ku xisaabtamay marka aan kala tagno waxaan ku wacay oo isbitaalka ku geeyo oo isbitaalka ila gashay waxay aheeday
بريتو هدان اسبتالك حتى كل انتو مركان فولانيو إلا نقولي جيري بيقول حسان ناكت مركي دالايسو operation بانجليا أو أنت سقل دن لي خلبان كل مكري هداي فولنا قطن وان كل مكري لما وضع يفرنادي إنا بدبادي إنا دنتو waxa aniga isbitaalka aad ila gashay waxay ahayd aniga marka qorshahayga taydi qaaskan ka hadlo haddii isbitaalkan ku dhinto cunugaas ina qaadato wax kale kaama rabin ani isxaan kale nagiga ma ahayn laakiin waxay iga aaday haddii lacala qadar kugu dhaco milyuunay ilmahayga kale ehelkoodii baa joogo aabahoodii baa joogo ninkii dhalay baa taagan boqorkii dhalay baa u taagan cunug yar waaye aabiis intuu degan yahay milyuunay haddii aad dhimato oo dhakhtarka ku dhimato cunugaaga aabiis ha qaatay iga aaday raahib inaad qaadatid ood adigu kursatid haddaan dhinto ayay iga aaday jacayl kale ku igama ahayn inaad isbitaalka igula gashid waa iska kaa reebi karay waa ku diidi karay ima raaci kartaan ku dhihi karay waxaan doonaan sameyn karay laakiin waxay iga aadatayda hadday gasho oon isbitaalkaas ku dhinto oon awoodi waayo inaan soo noqdo gurigayga ilmahayga kale qorshay lahaayeen meel baa u diyaarsaneeday dadkoodii baa joogay cunugayga saqiirka wallaahi Soomaaliya cunugayga caloosha asoo ku jiraan ka fikir jiray asagoon dhalin ka fikir jiray cunugayga sababta ugu fikir jiraan ii sheega waxa isdii jira adduunka nolol geeriba waa simeeyeen labadaba waa u simanahay daqiiqada hadda aan sheekeynayo noolaha ayay iga bixi kartaa nafta anoo nii sheekeynayo marka iga tagtiina iga bixi kartaa nafta dad hadda joogay oo fiyoobay baa dhinto ugu yaraan si fudud ayadoo waxba ku dhicin ay u dhimanayaan gaariya ku dardari karo adoo sheekeyna dhima kartaa biya ku sixin kartaa candufta ku sixin kartaa wax kasta malaga meel kasta ku soo mari karaa dadka ku xisaabtama ah aniga marka geeriyo nolol mar walbo waxa u xisaabtama qof naaw nafta ay ka bixayso waxaan kale u xisaabtama qof aan wiligiis dhimanaynin aniga marka maadaama aan isbitaal galayay hooyo foolanaysana aan ahay waliba operation isku xiga aan galayay oo calooshayda ay qatar ku jirtay cabsi badan bay ugu jirtay because aniga operation aan galay isku xigo oo ilmo oo isku dhadhow aad baan u baqayay inay wax igaaraan oo aan dhinto ayaan ka baqayay sidaa daraadeedan adiga isbitaalka ku geeyay oo aan ugu tala galay hadii even aan dhinto inuu gaala ka badbaado raahib aysan gaalada qaadanin oo uu saas ku badbaado aabiis qaato oo Denmarkadaada adigu aad la tagto oo sharcigaaga u qaadato ayay iga aheeday jacayl adiga ku qaba igama ahayn haday wax kugu dhacaan cunugan aabihiisa ha yeeshto yuusan dhaxda ku dhumin oo cunugan Soomaaliyeed yuusan noqonin qof Swedishka bari ku dhax dhumay oo barito noqdo dad dhaqan gadoomay uu noqon inta ka badbaadi karta ka badbaadi milyuunay hadaa dhimato hadaa nooshahan adaa u nool cunugaaga iga aheeday alxamdulillah sida ilaahay ila jeclaay ama la igu tala galay way noqotay cabsida igu jirtane maysan dhicin dhimashada aan ku fikiraay ilaahay iga badbaadiyo waan dhalay waan soo noqday cunugayga gurigayga ku soo noqday alxamdulillah shukri still am in life wali waan noolahay intaan noolahayna raahib aniga ayaa u joogo ewel qorshaan lahay oo aheeday cunugaaga haday wax ku gaaraan oo dhimatid aabiis ha qaato ha ka badbaado dadkan kale yuusan ku korin dad oo xoogaa gaale diintiisa iyo Soomaalinimadiisa yeesan noqonin mid dhaawac gaaro milyuun aabiisa la xiriiro laakiin today waxaan diyaar u ahay tayda haday gasho oo aan dhinto oo adduunkan aan ka tago oo saacadahan kulahay leeysoo afjaro waxaan diyaar u ahay wiilkayga inay gaalada qaadato inuu raahib ku koro gaalada dhexdeeda hadda wiilkayga curadku badbaadin kara ama wiilkan kale ilmaha aan u dhalay oo ay dhihi karaan wiilkan macnaha mas'uuliyadiisa ay qaadi karaan warqada u qora waa u sameeyna waa u reeba mar walba warqadan qoraane waa diyaarna in cunugayga hadii aan dhinto oo aabiheen maxaa la yiraahdaa ay haysan karaan hadii markaas ay iiga mas'uuliyada ogol yihiin haday noqon weyso wiilkayga gaalada korsanayso raahib wuu koraa waa la koolkoolina dhaqan ku rababa ku koro ma jecli inuu dhaqan gaalay dhibaato uu ku kor cunugayga ma jecli inuu gacan u gala gaalo laakiin qorshahayga ahay inuu ka badbaado oon xoog saaro oon aabihiisa uu noqdo nin asaga cunugiisa xafito markaan aniga dhinto adiga ayaa baabiyo qorshahaas maalinta aad i caysay oo dulmisood gurigayga ka tagayta ayaadna baabiisan not today ma dhalin kumaadan baabiin tan ma dhalin maahan maalinta intaan kala tagnay aan aniga adiga isfaham weynay oo aan ku dhahay walaalow kuma rabi
mar damban inaan kula jiifto ma rabi wax dambe inaan kula dhalan ma rabi calaaqaadkaaga ma rabi wax inayna dhaxmaraan ma rabi game is the game past is the past game is over markaan ku dhah haddaa tartiib u bixin laheeday ood noqon laheed sidii wiilashaan aan kala tagnay ilmahooda guriga joogaan ee aan xiriirno haddaad noqon laheeday waxaad noqon laheeday sida iyagoo kale waxaan ku fikir lahaa mar walba hadday wax i gaaraan inuu cunugayga aabihiisa uu qaadanayo gaaladaas ka badbaadayo oo adiga ay haysanaysid laakiin I'm sorry waxaan ku faraxsanahay maantay wiilkayga wuxuu doono ha noqdo future-ka laakiin inaysan waxba ka halaabaynin oo aan joogo dhul ammaan ah baytul aamiin ah oo cunugayga ka helayo xaquuq oo cunugayga korayo laakiin markuu koro wuxuu noqon doono wax lagu abaabin doono bis taas awal waligu heeso markuu gaalo cunuga la koro waa dareemi kartiin wax kaluu noqon karaa dhaqan kaluu qaadan karaa wax kaluu noqon karaa oo diinta islaamka iyo soomaalinimada aan qusaynin taas ayaan ka walwalaayay saacadaha la joogane wax ilaahay ii qadaray ama wax asaga inuu mar loo qadaray ma celi karaayo tayda hadday dhamaato cunugayga dad baa diyaar u ah wadan hormarayuu joogaa calankaas isfaariya ayuu hortaagay ku dhashtay bartaas calanka isfaariya uu ku dhashtay cunugayga ayaga ayuuna hoos joogaa waa nin isfaaniska Swedish weeyaan nin isfaaniska ah weeyaan ma fahanteen soo marka wax walwala igama haayo at least raaxo igu koraa at least waa lii korina waxna waa lii bara kadib wuxuu noqon doonana waa wax asaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gartay ama ay u qorneed inuu noqdo hadduu badbaado oo igoo la kor asaga uu ka badbaadana alxamdulillah hadduu ka badbaadi waayo uu beerta galo uu noqdo sida ayaga dhaqankoodina hadda Swedish badan waxaa jira dad badan oo gaala oon waxaas noqonin xataa oo dhaqamadooda u fiican yahay oo iska gaala igoo gaala haddana aan aaminsanayn waxyaabaha qaar hadduu kuwaas ii noqdane alxamdulillah hadduu iiga badbaadane alxamdulillah laakiin waxaan kuu sheegaa inuusan kuu baahnayn inaadan adiga waxba igala maqnayn aabanimadaada maalinta aad aniga siilkayga iyo futadayda tilmaantay iyo gurigayga quruxda badan leh aa u malaysid qasri madaxweyne lagu soo dhaweynaa 4 saac taagan saacada la joogo kamerada kugu qaban karaa meel walba gurigayga kamid ah ayaa tiri gurigayga wasaq waay 6 bil baan nadiifinayay siilkeeda hebelow baa dhakhtar baan tagay dhakhtarka anaa ku diray anaa ku iri dhakhtarka aas oo iga soo daaway niicdan fartaan yaraydaaba idhibtay igu kicinaysay adeer maalinta noloshayda ka hadashay gurigayga ayaan go'aan ku gaaray inuu wiilkayga wixii u qoran uusan dhaafaynin gaaladana uu gacanta u gali doono soo ama waalo ama habar u kor aday ku taala madaxiisa fiiri ninkaas markuu sii jeedo Soomaaliya bartaas ka eega waa dadku diisan ka qabo hadalkiisa dhageysta markuu hadlayo waa dadku diisan ka qabo wax kasta uu ku hadlay qiimeeyo waa qof aan fayoobeyn aniga anaa halis galay ilmahayga halis galay alxamdulillah shukri haddaan maanta Soomaaliya nabad qabo oo wiilasheedii nabad qabaan oo balaayo aysan ugu dhicin alxamdulillah rabbil caalamiin qof kasto oo taageerayo qof kasto oo ehelkayga qof kasto oo Soomaaliyeed waxaad ku qanacdiin waxa socdo waxba maaha ka darnaa daboolan ka daran ayaa Ilaahay naga badbaadiyay ninka noocaas dab gurigayga aniga imaaday halis baan bagalnaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaaba na badbaadiyay oo malaa'igiisa noo soo diray الله سبحانه وتعالى أيها إيجا بدبادية شرطيسة إيه دبكيسة نينك ويك أنا قلم ميس يقو قراع الربوان ميس يقو تمي ربا هل ويك أنا يقو قلم نينك كدر مسميكريو حو سميلها يا كدر سو مسميلهن مركا صدقة يقو واجبتي صدقة أيها يقو واجبتي tolkayga iyo asxaabteyda iyo Soomaaliba waxaan ii sheegayaa waxa dhacay waxba maahan ka daran baa daboolan oo Ilaahay baa na badbaadiyay aniga iyo ilmahayga oo shartaan ninkan uu wata naga badbaadiyay alxamdulillah ala nimcatillah alxamdulillah ala kulli xaal Ilaahay ayay mahadaas u sugnaatay maanta aniga owladeyda hadaan nabad qabno Ilaahay ayaan uga mahad celinayaa ma dhalin iyo waa dhala iyo midna waxba maaha مليون وادلا يا دلا ما هنا وحما ما وحنا هنا نقول من قناي مليون وسقلي وين نضيف لي وين وحما ما هنا وحنا هاي بان هنا يا مهمة ونفط بني آدمك إيه مسكحة بني آدمك لبضي بهدي إيه في يومين الحمد لله على نعمة الله أيان الله إلهي يجبد بادية أبرز كاس بالرقة ودن كستر إنه يجي عباد ورجوش ويجسوا عذابي وهالسنة وحنكون ولاي جوجل الآن
oo haddana wuxuu rabaa inuu iga cadaabo sida kale bismillaahir rahmaan ilaahay baa kuu gartay ani kuma garan inaad iqancin weyso ilaahay baa kuu gartay inaan kugu qanci waa ilaahay baa kuu gartay way igula dagaalaysaa tan kale ma sheegi lahayn oo lama ogaan lahayn haddaad aamusi lahayd aday dulmiyo oo igu yiri naagtan waa i wastay jawaabtaadana ku siiye waxaan ku iri saan kugu wasaa ma balihid waxe waana run ilaahay baa ila og ilaahaygi abuurtaba ila og inaad biriqta oo faryareydaas aad toodan waliba kacsanaynin abaha was hadaa kacsatidna uu hore ka damay biriq dhaafay baa tahay ilaahaygi iga kaa badbaadiyey ayaa ma hadda iskale ceeb hadday dad qabato aday ku haysaa caddeen haddii loo baahan yahay aday kuga caddaha maanta aday kuga caddahay ee haddaan rag tahay DNA dalbo ani wax DNA la dhaha ma dalbaay dadaa waxay ugu dhahaan milyuuna DNA dalbo milyuuna ninka dacway no anigu wax DNA la dhaha aan dalbanayo ma jirto ninka dhahaya waxba ma dhalin asaga ha dalbado warqadana ha ii soo dhacdo markaas anigu waan marayaa waliba waan nii sheega maanta DNA-ga la soo maraya nii leeyahay laakiin aniga waxaan dalbanayo ma jirto wax dacwo aan qabo oo DNA ma jirto shaka hadduu yahay waxaan dhihi lahaa dowladda i kala saar dhowr nin aan la jiiftay kala saarka keenaan dhihi lahaa haddaan dad la jiiftay kala duwan different man haddaan aniga la jiiftay waxaan dhihi lahaa I can't remember waddan hormaraan jooga aniga xoog igu leh no waxaan dhihi lahaa dalka aan joogo aniga I can't remember ma xasuusti contacti kala duwanaan malaha sameeyey i caawiya intaasoo qof aan la kulmay DNA halii tuuro intaba haliigaga tuuro I'm not sure qofka dhan laakiin aniga I'm sure aan ku iri ma taqaanaa lagu yiri milyuun qofka yes adresskiisa ma haysaa yes ma nagu caawin kartaa yes intuu degan yahay meel hebel waa lagu weydiinaa meeshaan qof kale maa la jiifatay waa lagugu soo celcelin xataa ma jira contacti kale aad samaysan no asaga miyaa keliya ma hubtaa haa meeshaan dhedhel ma iskaga haraya adeer dal sharci laan taaganaha dal sharci leh aniga naftirkeyga dowladda isxaan ima samaynaysa wax isxaan ee meeshaan ma jiro sharcigaasaa lagu kala baxa lowgaas ayaana kala qabana soo dacwada ninka qabo oo taagan waxba ma dhalin Soomaali asaga la DNA ha u maro asagana ha dhowtina ha keeno DNA-ga warqadda DNA-ga social media asaga ha keeno asagana ha dalbado dowladda ha ka dalbado wiilkayga lacagtiisa bilaa abaala laga qaada dowladdan xaq oo ku lahaan lahaa aniga ninka iga dhalay hadaan garanaynin dowladda Swedish-ka wal xaq ku lahaa wiilkayga laakiin waan garanaa ninka dhalay soo dowladda waa xaqeeda in laga qaadin weeyar adaa bixinaysid adiga dhalay adiga bixinaysid waxa ku dhashaday ku taa 3 bil baan qabay hadan maanteed xanaaqa iga keen adiga la dhahays mar walba xanaaq ma ku qaldaadi xanaaq la kugu dheelaamay maskaxdaan xunta ina waalanta fiir jinniyad qabtaa caadi ah jinni ha ku dardaray baabuur ha ku shiide meydkaaga hala waay biidnillaahi kariim oo masiibo kugu dhacday oo meelaad ku go'ooda la waa adigii baabuurkaagaba isla jabjabo isla kufkufo meelaad cadkaaga laga gurbiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala lama helo ilaahay waxaan ka baray weligay hal maran qof habaara noloshayda qofkaasna habaar fudud ah wuuna ku dhacay adaan ku habaara had masiibaha kugu dhacda aan harin cadna ha lagu soo gurbiyo hal la waay hilibkaaga meel laga duugo ilaahay subxaanahu wa tacaala cuqubada aad ka gashay saqiirkan yariska ee 4 bilood jiro ee maskiinka ee iska ka difaaci kar maanta nin weyn haduu ahaa kula xisaabtamo ilaa dhagto kugu dhufan lahaa hooyadii ma saasleedo ku dhilaa maanta nin weyn haduu ahaa aniga ma itirmay dhal DNA la maro ku dhilaa kadibna maxkamadu ku soo saar la kadibna magdhow ka qaadan lahaa magdhow ayuu ka qaadan lahaa laakiin sorry ma jawaabi karo waxba kuma dhihi karo kuma canaana karo wadan hormaru jooga kaaga ma arsan karo wax uu maanta sameey karo male waa fiira monaadir oo jira 4 months soo jira innocent way cuqubaad ka gashay xaqdaraad ku sameysay waa dulmisay daalin baa tahay waad ku xad gudubtay waad caysay hooyadiis baad dhibaataysay biidnillaahi kariim biwajillaahi kariim cunugaas sirdartiisa ilaahay masiibo aan harin allah kugu rido baabuurkaaga adigana hal idin kala garan waayo biidnillaahi kariim Soomaaliya aamintiisa qora ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa haddaan anigu shala ninkaas dulmiyey oo aan rabay inaan fadeexeesto oo aan rabay in ceebtiisa la ogaado oo aan dulmilay ahay ilaahay hayga soo saaro laakiin hadduu intaba asaga sabab u ahay oo asaga i dulmiyey oo asaga gogashi ka hadlay oo asaga i caayay oo cunugayga dulmiyey oo nolosha bini aadamnimada iyo islaamnimada uu ka tilaabsaday Soomaaliya xaqaas ku leenahay
إلهي سبحانه وتعالى وحقيقة بردين ننكاسي بابور كيسي إلا كلا جران واي ميت كيسي إيه بابور كيسي إلا كلا جران واي بإذن الله كريم لوجه الله سدا عضا يعني إلهي أبرياء أنا ودمر يعني هذا كور نين إنكار الظلم كسمة ضد إلهي نو إيجا قصو صاري مع هذا الله أنا قول لي دلمية أو ولي بعنو سقير لقى دلمية سقير أنا سنتية أود كم قد سقير كي أجو إلهي كجرتا سقير كاس أفرت بلاجرو أود كم قن الله سبحانه وتعالى أي كجرتا وينها واحد كأيا جعنتك وهايو حوجة كم قن الله وكجرا مسكحة كم قن أوسنكو هذا كرنا الله وكجرا تاس أياد إلا وذي إسلام هاي مساجد كجرا وادو كذا مدو كتي دليا تاي صلاتنا مدو كتي ذي بنت أمد كذا نعلة الله عليك أنت كدو كتا سجودا دول كان هدان كو حقو سدح مالوي مدوبانيسا هدان اسك دور مدو كتد إلهينا متقاند أمدنا ميهد إسلام الراد كملهد إلهي باكونا على ضي because adoo konton sano jiro fiiri inuu ilaahay waxaan ku sheegaa masiibo ku gurido konton sano jirta asad meel waxaad la soo istaagtay waa sineestay saddex bilaan qabay fuulay ilmahayga ma dhalin cunuga wahbalo waaye hayayaya dulqaad dhan ma lihid ana la iga raba saas inaan u qaraaro naagti laga raba inay qaraarto aniga ahayd naagta haday xanaaqaysa ay xanaaqda naag aniga ayay ahayd xeetaa nin qaraaray xeetaa nin xanaaqay حتى نين جبناي حتى نين عباداي حتى نين عيتماي حتى انت لقى أركا دون كواي نين عيتماي بالفيري ساس صدرت بلشينة كل ده جوك تاسي خبر وايل أنا كوجا أرستي تنبأ إيه دلائي صحيح دلائي جوانا سمسكنت ما عمله سويد قود حيد دلائي أنا نرجع تاي وحلقة بقولها داقر تحت برقة بيها دوهان مرفشسي إني أكون عن لكن جوانا صحيح دلائي تنكلوا واحد دلائي سمعونه كان كشرب بديه بيها كان أها بساس وقشة دقن مياه عقلي ما يقبل كته بلايا وحكونش أو مصيبك وقدعضي أو إلهي سبحانه وتعالى عد كوجوي عيبها أدرادين يسد يعرورها أي عين يسد عادل كيها كأعرى أو على شاد هلا وايو عبارنا الله كورده بلايا وقدعضي مصيبة يا مصيبة ضرش مصيبة تأدون كان لكيني تنكله ناقصنا صفرته دبا مسعود حاني كذا بدي أنا جواي أدي كذا ما لا ده محاي كذا بدي قروح بان إلهي إسيشال نسيحر أدوها شيء هل عنوغا ليغا كا قرواها شيء إيغا ما تدو ما إيغا هرتد حوق ما لسكولا نغدا حوق ما لسكو قبا رابطانا لسكولا جوغا دون كان تنكلا حتى هديو كوكو جرت مليون كما ما رانتيد سرسرو ووضا الله مراجرو إي سومر لكن أنا عاي إيو عنوغ مدلن إيو هبلو إيو وحاس قرارا كا كيني ما مركو قصو نقرأ ولقي نقاشيس كداي ميت كاغا دوغو قول يقول حتى مليون مختار عفي ووغو قوي حتى هديلي ده مختار ووغو قوي مليون عفي هديلي ده كمان عفيناي من الربا ميت كاغا إنا أركي عد أديك كاغو أي نعلا دي كوكو دعضي إركي آدي ويسو نقوني دولكي آدي ويسو نقوني قفكي آدي قفك لوغو تلقى لهدايسان قباني نوصن علامة لوغو شاقا لهين أنا يقصو نقوني قفكي شاقا يقباني نعلت كوكو دعضي دين الله هذا ما جرتي قنيس وحاتا مرنا مساجد كو عرر مرنا وحان كو إرهدايو آن دوكنين مرنا أمد الظلمينايو نعلت الله عليك تو واكحوما هذا برقنا سيلكي كو فيدو وان صرير كل سيحدو نعلا سنجيد دادو كو تالي بختي وبختي كو دالي